السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. walaalaha qaaliga ah kusoo dhawaada duco channel. casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay qaladaad maalinka jumcaha ay dadka sameeyaan. dad badan khaladkan way sameeyaan waxayna u badan tahay in aysan ogeyn khatarta uu leeyahay. lambarka ugu horeeyo beeca waa xaraan marka uu yeero adinka jumcaha, yacni maalinka jumcaha markii la adimo oo masaajidka dadka ay ku xaadiraan inaad ganacsataa waa xaraan. aayad quraan ah ilaahay waxa uu ku yiri يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كو حق الرمييو marka la iskugu yeero salaada maalinta jumcaha ah aada xusida eebe fascaw baa laleeyahay ilaa dikrillah, yacni idinkoo degdegaya aada xuska eebe. wadarul bayc dhalikum khayru lakum, wax gadashada iskaga taga sidaasaa idin khayroone. in kuntum taclamuun, haddii aad tihiin kuwa wax og, yacni kuwa wax garanaya haddii aad tihiin inaad aadaan jumcaha iyo khudbada ayaa idin khayroon ood ka tagtaan wax gadashada ama wax beecinta. aayadda ku xigtan waxay leedahay faidaa qudiyat isalaati fantashiruu fi lardi wabtaquu min fadlillaah wadkuru llaha kathiiran lacalakum tuflixuun. markaad salaada dhammaysaan dhulka ku kala faafa oo doona khayrka eebe, ilaahay xusa in badan. meel kasta oo ilaahay xuskiisa la isku amraayo ilahay wuxuu leeyahay wadkuru llaha kathiiran, in badan ilaahay xusa. markaas waxaad u dhowdihiin yacni lacalakum tuflixuun in aad liibaantaan. qaladka labaad waa in qofka uu soo daaho kadibna uu arko meel yar oo horay ka bannaan oo uu dadka kasoo tiltilaabsado oo bidix u socdo midig u socdo asagoo doonayo in meeshaas hore ee bannaan uu ciriirsado. nabiga sallallahu calayhi wasallam arrintaas wuu diiday. maalin asagoo khudbeynayo oo mimbarka saaran ayuu nin isku dayay inuu sidaas oo kale sameeyo uu dadka soo dhex jiirjiiro. mana wanaagsano in aad xilligaas oo kale dadka dhex marmarto ama aad ka tiltilaabsato. khaladka saddexaad waa in aad masaajidka soo gasho kadibna aad iska fariisato. maalinta jimcaha oo keliya ma ahan, masaajidka xilli kastoo aad gasho waa inaad tukataa taxiyatul masjid, yacni masaajidka markaad soo gasho waa inaad 2 ragcadood tukataa. waxaa jira xadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri idaa dakhala axadukum almasjid falyarkac rakcatayni, haddii midkiin uu masaajid galo ha tukado 2 ragcadood. labadaas ragcadoodna faral ma ahane waa sunno ajar badan leh. khaladka afraad dadka markay masaajidka soo aadaan xilli hore gadaal iska fariisto ama dhexdhexda waa arrin laga wanaagsan yahay. waxaad dhuminaysaa fursad qaali ah oo ku soo martay. safka hore waxa uu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam dadka ku tukaday imaamka marka uu salaada tujinayo ee duceynayo u dhow waa dadka maalinka qiyaame ilaahay aad ugu dhowaan doono. marka haddii uu ilaahay xilli hore ku keeno masaajidka gadaal ha aadina, safka hore boos ka qabso. hadday dadka ogaan lahaayeen safka hore waxa yaala way u qori ridan lahaayeen. haddii laakiin qofka uu cudurdaar haysto oo uu yahay qof xanuunsan gadaal haddii iska jooga wax dhibaato ma lahan. lambarka 5 inaad wax taabato waqtiga ay khudbada socoto, taasna waa arrin khalada. waxa uu yiri nabiga sallallahu calayhi wasallam qofkii dhagax taabto jumcadiisii way ka tagtay ama way jabtay. waxa uu saas u lahaana waqtigii nabiga sallallahu calayhi wasallam ma jirin roog, ma jirin taleefan iyo wax lagu mashquulayo, yacni meel dhagax oo waxaa la fariisin jiray dhagax yar yaalaan ama carro ah. haddii uu qofka marka waxaas taabto oo ku mashquulo wuxuu u sheegay in khudbadiisa ay sidaas ku jabayso. taasna waxaa la mid ah inaad taleefankaada kolba riixdood fiiriso, in roogga duftiisa aad gacmaha gelgeliso ood ku yara falaado. waxyaabahaas oo dhan khudbada uma wanaagsano. waa inaadan cajis muujinin. dad baa jira lugaha fidiyo, mar soo laabo, madaxa xoqdo, meelaha firfiriyo. waxba cajisa isdareensiinine, waqtigaas wuu kooban yahay intaas yar dul qaado. khaladka 6 xilliga ay khudbada socoto hadday jiraan dad hadlayo oo gadaashaada ama dhinacyadaada joogo inaad dhihin
aamusa oo dhageysta imaamka. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofkan dadka kale aamusinaya asaga ayayba jabaysaa jumcadiisa. yacni waa inaadan hadlin inta uu imaamka minbarka saaran yahay ee uu khudbada wado. wixii hadlaya ha hadlaan adiga laakiin xitaa aamusa ha ku dhihin, yacni iyo wixii lamid ah waa inaadan dhihin, sababtoo ah adiga taada ayay galaafanayaan. haddii la diidan yahay in qof dad hadlay uu aamusiyo oo iyo wixii lamid ah uu dhaho, dadka meeshaas ku hadlaya ama ku sheekaysanaya khudbadii oo socotana waxaan garan karnaa inay dambi ku jiraan, iska daa ajir ay helaane. khaladka toddobaad, nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri qofkii asagoo wax cudurdaar ah haysanin 3 jumco oo isxiga ay dhaafto, qalbigiisa Ilaahay calaamad ayuu ku dhigaa, wuxuuna ka mid noqdaa kuwa baadiyeysan. muuqaalka intaas ayuu ku egyahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.